waafaqsan wuu dhacay waa farsamo dhib badan waliba in bini aadam la dhisaa waa farsamo aad u sii dhib badan waayo materialku dhagaxa haddaad dhagaxa saartay intaad ka kala soo helaysa wuu isa sii saaraano inaanu kaa duwin baa la arkaa wixii loo baahnaa markaad ku qabqabatee dhigto aad ka tagto inuu sidaasi kuugu taagnaado laakiin bini aadamku haddaad wax meel ku ogeydo aad ka yaro maqnaato ama wax kale idinka soo dhex galaan ama hore aad samayn kari weydaan progress wuxuun baa laga yaabaa berrita inaad afartii qof aad isku wadayba weydana wixii shalayta aad dad program la gashay ama qaabkan u waday ama noocan in wax badan iska bedelaan oo aanay dhismin waa maxay waxaynu u baahan nahay waxaan qabaa inaynu waxyaabo badan u baahanay awalan waxaynu u baahanay feasibility study ama daraasa miidaaniya ama meeshaynu rabno inaynu wax ka dhisno bal horta inaynu garanno ثانيا waxaynu u baahanay waxaynu rabno inaynu qabanno ama waxaynu rabno inaynu ku bedelaa inay wax cadiyanayi wax cad oo la garan karo oo yaa garanaya maaha wax cad oo dadka ahlul cilmiga ah oo qura u cadcad waa inay noqdaan wax cad oo bulshadu ay kula garan karto waxaad wado wax waadixa oo bulshada aad la rabto waxa kan inay qabataa waa inay kula fahmi kartaa si ay isu ka garab taagi karto sida daraadeed haddaynu dib ugu noqonno caalam alislaami oo aynu nahay gobol yaroo ka tirsan dhibaata ayna haysata laba dhibaataa wada jira oo ayna haya mid waa dhibaato caalamka oo dhan haysata ama dhibaato caalamiya oo ku salaysan qolada xoogga badan leh inaanay u ogolayn qolada tamarta yar leh inay noolaato taasi waa mashkilada caalamku isku waafaqsan yahay ama ha laynoo bixiyo caalamka saddexaad marmarka layna asturayana ee ceebta laynoo diidayna ha la yidhahdo kuwa soo koraya erayadii la doonayo ha la isticmaalo waa dhib aynu dadka la wadaagno waa dhib loo samaystay mu'asasaad waaweyn oo caalamiya oo cadaadintan loo samaystay ilaa iyo waxa mu'asasaadka waaweyn ee caalamiga la sheego min United Nation ilaa iyo waxa ka hooseeya waa meelaha lagu falanqeeyo ducafada qadiyadahooda United Nation abidkiin falanqeynaya miya maqashan qadiyada ragga xoogga leh qadiya Mareykan leeyahay miya United Nation lagu falanqeeya it's impossible
league of nations maxaa riday qoladii xoogga weynayd unbaa ku heshiin weyday dabeetana qayb ka midaa diiday talyaanigaa diiday inuu etoobiya ka baxo waa la xalili kari waayo yaabaan baa diiday inay manchuria ka baxdo waa la xalili kari waayo qoladii markaa xoogga lahayd ee super powerska ka tirsanayd qaar ka mid ah ayuunbaa hoggaansami waayey deetana way burburtay tan dambana qolaa ku heshiisay inay wax ku qaybsato si kastaba ha noqotee waxaan leenahay caalamulislaamiga kale iyo kuwa kale ducafada ee xataa aan muslimka ahayn ee nala qaba taayir weyn oo wada dul saaran oo lagu cadaadiyaa isagu meel yaalla kaasi waa mid oo ummadaha kale inu la wadaagnaa waxaa kaloo jira baynu leenahay caqaba shacbiya mudday hurudda dhowrkaa qarni ee ay hurudday caalamka kalena horu u socday kadibna waa la qaybsaday oo isticmaalkii caalamiga ahaa caalamulislaami wuu qaybsaday takhallufkii wuu kusii tiro batay jahligii maaha ka maadiga oo qure waxaaba laga yaabaa kaa inay iminka wax ka soo kabkabteene waxii bayska noloshooda u ahaa iyo diintay rumaysnaayeen baa ka luntay oo badh khuraafo haysta iyo badh wax kala haystaba aad bay u lumeen waxay kaliftay taasi inaanay yeelanin ahdaaf la garanayo ay hiigsadaane kolba kii fikrad yar ula yimaada inay raacaan mid shuuciyad ugu yeedha mid qoomiyad ugu yeedha mid wax kale ugu yeedha kullu naaciq inuu cid ka helay waayo waxay waayeen wixii jidhkooda wax difaacayay waa jidh aan lahayn wax difaaca mashkilad kalea ku dhacday oo aan odhan karo albadaawa wax la yidhaahdo haysata badownimada reer miinnimadii caadiga ahayd ugama jeedo laakiin waxaan uga jeedaa cadam taxadur taarikhdoodii way ka masaxantay umamku dee taariikhdooda hore wax ku beneeyaan taarikhdoodii way ka luntay waxay soo baxeen dad aan xadaarad lahayn badownimadu waxyaaba lagu yaqaano caana bay leedahay waxyaabaa lagu yaqaano caankaa waxaa ka mid ah alfawda wa cadam alindibaad ma jecla maamulkaba waxa la yidhaahdo waxa maamulka la yidhaahdo ma jecla waa nawcun aada u maamul neceb waxaa lagu tilmaamaa alustaad maxamed qutb ee kitaabkiisa waaqicna almucaasir safxadda 492 ayuu wuxuu ku tilmaamaya wuxuu hi manطaqada ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ahi gobolladay degan yihin waa gobollo kulul buu yidhi waa bii-o inta badan fawdawiya ama waa bii-o aan maamul rasmiya inta badan u khuduucin waa dad buu yidhi noloshoodu inta badan si sahala isaga timaado waayo buu yidhi wadannada kulul waxaa caadiya ama badan inaan dadku gaajo u dhiman raashin yar yarina inuu ku fillaado ila meeshu dhaxan ma laho caynkaasi maahe weliba waxaa caadiya buu yidhi inaanay u arag mustaqbal badan oo laga sii fikray in maskaxda lagu daaliya inay iska dhib badan tahay maantaba mar haddaad nooshay berrina dee saad maanta u noosho unbay lamid tahay miyay ka gedisantay maantaba waad joogtaa waxbaad cunaysaa saa dambana kadalik caynkaa unbay noqon doontaa arsaaqdana ilaahay baa qaybiya subxaana wa tacaala dabeetana waa ummad iska fawdawiya buu leeyo mashkilaadkooda si cafawiya uga baxa aan aqoonin in mustaqbalka wax loo dhigo ama in badan la daraaseeyo ama in badan la odorosoo la eego waxa ka soo socda waxaa kaloo lagu yaqaanaa ummadda reer badwiga aynu ku sheegayno alcunf wa surcat itikhaadi alqaraar maamul darrada waxyaabay keentay ka mid taho waa dad hadday wax qoonsadaan jecel inay xoogga ku suuliyaan qofku bini aadamki waxbuu qoonsan karaa laakiin in xoogga la isticmaala maaha hadda best solution ama the only solution meesha yaalla maaha waa dad markay wax qoonsadaanna jecel inay xoogga ku dayaan ninka soomaaliga weliba markaad u fiirsato nin soomaaliyeed haddaa isqabataan markaa isdishaan unbaa laydin garnaqi karaa soca kaa maaha dhaqanka soomaaliga haddaa nin soomaaliyeed isqabataan horta waa inay isgashaan marka hore laydinma kala qaban karo markaa isdishaan kadib laakiin waa ogolaya inaad garantaan labadiinuba waa fadhiisanaysaanoo dadka waa ogoshin in laydin garnaqo marka hore se ma ogolid in laydin garnaqo
وبداود وحيابه لدي عدم التحضر أما دادكم مركان valuesku aad qiimo ugu lahayn waa waxyaabaha leeyihiin oo kamida wax walba in xoogga lagu suuliyo ama muruqa lagu isticmaalo go'aanadeeduna ay yihiin si degdeg ah waxad iyo goor loo gaadho waanu nafas طويل ama wax in badan la daraasayo ama laga fakara way ku adagtay waxa inta dheer waa bulsho inta badan ku salaysan tacasubka qabaliga ah oo ninka qabiil ka dhashay qabiilkan inta badan wuxuu isticmaalaa lilximaaya inay ilaaliyaan mujtamaca waxyaabo badan aanu ka helayna uu ka helaya waxaan aad u xasuustaa eray nin dhalinyari maalinuu Jabuuti ga yidhi nin dhalinyaro dhugdhuglay wata ayay yidhaahdeen waxaad bixisaa insurance-ka gal markaasuu doodayo wuxuu lahaa anigu insurance-ka geli maayo waayo baa la yidhi wuxuu yidhi anigu reer baan ka tirsan oo qaadhaankiisaan bixiya marka baashan hadday cid wax yeeshana reerkunbaa bixin haddii kalena yacni waa dawla taxta dawla meel buu ka tirsan yihi markaa wuxuu ku andacoonayaa uu leeyahy anuu insurance-kan dawladda geli maayo waxaana sheegaysaana qaadhaan reer baan ku jiraa hadday baashu cid wax yeeshana reerkaa bixinaya reerku hadday cid wax yeelaana anna waxbaan ka bixinaya therefore uma baahni buu leeyahy inaan nidaamka galo ficlan qaabku u fakeraya waxbaa ka jira waayo dadkani waxay waayeen meel kale ay ku tiirsadaan waxay ku kaliftay inuu wax walba reer dabada saaro oo markaa gar iyo gardarraba inuu iyaga ka tirsan yahay reeruhu mashkiladooduna waa iska dhibaato badantay carabtii hore waad moodo mararka qaarkood aan islaamala mujtamacaadkeena aad bay isugu dhaqan dhadhow yihiin intaan islaamku soo degin ayaa waxyaabaha lagu faano waxa ka mid ahayd un dee reernimada iyo in reerku cidda kale ka xoog bata iyo waxyaabaha la halmaala iyo dagaalka iyo dilka iyo waxaan inaanay wax qiimo badan samaynaya ahayn shaacir carbeed oo la odhan jiray Shadaq ibn Ya'mar ayaa gabiyayey markaa tolkiibuu u gabiyayaa inay dagaalamaan wuxuu taxriid buu ku samaynayaa boorin markaasi wuxuu leeyahay qaatil ilqawma ya khuzaacu ولا يدخلنكم من قتالهم فشل القوم أمثالكم لهم شعر في الرأس لا ينتشرون إن قتلوا دقال أبو لا خزاعي ويان مرنا بالدقال كبقى إذن كسو قلنا فشلنا سويسنين كيسا لكنه فرصاني كان والرق إذن لم يدو تمالبو إلو هذا إذن يبا فعلا مايا يعني قيمه وحقوق قيمين إياه وضد تماله hadday dhintaan iyaba dhibashada ku feedhan maayaane buu leeyahay wax iska celiya waxaan garan karnaa jaahiliyaadka carbeed say u dagaal jeclaayeen mararkay waayaan colkii fogaa marka la waayo cadowtinimada shishe baxdo xagga sokay isugu soo noqon jireen way reerihii shishe la iska celinaya marka la durkiyo dee meel kale ma hadhina waa inaad kuwan xiga unaad garbisaa markaasuu gabiyayo wuxuu lahaa wa axyaanan calaa bakri akhiina idaa maa lam najid ilaa akhaana dagaalkubu tilmaay inuu iska ammaanyo mararka qaarkood markaan weyno cid kale buu yidhi kuwa noo dhown baanu ku qaadnaa buu leeyahay waa markii cid kale loo waayo waxaad garan kartaa soomaalidu maxay tidhaahdaa muxuu ahaa ciddaana in adeeru lahaw walaalkaana wiilu lahaw soo mu ahayn waxaygaasi oo kalaha yacni cid walba uu iska ilaalinaya walaalkii buu leeyahay wiil u dhal kaa difaaca berrinta haddaa isagana isqabataan kuwa kalena in adeeriyo wuxuu lahaw almost waa nin raba inuu wax celiyo oo dagaalu jooga waa dad runtii aada u dhib jecel bay ahaayeen yani waaxid minhum ayaa faras yar buu lahaa faraskiisa yar buu kobcinayay marka faraska yar buu gabay u tirinayaa laakiin gabayga kan waxaad ka arkaysaa caqliyaddu ku fekerayo wuxuu ku fekerayaa ida almuhara wuxuu leeyahay haddii faraskaygaa yar dhabarkiisu uu fuullimaad gaadho ilaahay ow reeraha dagaal ka dhexrid buu leeyahy yacni wuxuu rajaynayaa mar uun faraskaasi intuu kobco dhabar la fuulo intuu yeesho dabeetana ilaahu markaa yaa dagaalka rida buu leeyahy waxaan dhigaha la arkay waxaynu garan karnaa yani adabka soomaaliyeed waa layga badiyaa sidaa daraaddeed baa laga yaabaa ku qolo la nooca un inaan idin tiriyey ka soomaaligana lagama waayan haddii nin adiibi maanta joogo intaan gabay af carabi ku sheego soomaaliya uu soo helaya waan hubataa waayo waa la noocun waxaa jirta nin shaacir jaahiliya wuxuu lahaa
in ana lam ansur akhii wahuwa ظaalimun cala alqawmi lam ansur akhii xiina yudlamu walaalkay buu yidhi haddaanan u gargaarin marka uu wax dulminayo nacasnimadayda buu ku leeyay ma berrinta marka la dulmiyaa baan u gargaaraya yacni waxa weeyaan marka horeba waa inaan gargaarka la dhinac taagay maalinta wax dulminayo haddii kale berritana waxba tari maaya buu leeyahy marka isaga la dulmiyo nimankani waxay xad ka gaadhsiisnaayeen jaahiliyada carbeedaan tilmaamayo waayo waa badwi ku salaysan casabiyada qabaliga iyo nidaamkeeda waxay xad ka gaadhsiisnaayeen uu nin tolkiina caayo qolo kalena uu ammaano sabab keliya buu tolkiina u maagayaa reeraha kalena uu ku ammaanaya reer kale u ammaanaya reerkoodana wuu maagaya wuu caayaya muxuu reerka kale ku ammaanaya muxuu si reerkooda ku maagaya wuxuu leeyahay laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana hayaa ay markay yidhaahdaan buu yidhi nin reer hebeli tolkii ma weydiiyo war maxaa dhacay war mahay la dhinac yaacaan buu leeyahy annaguna markaanu soo qaylinun baa odhanaysaa buhi maxaa dhacayda naga daayuu diidaya markaa wuxuu leeyahay inaa reasoningay weydiisaa waa ceeb tol baynu ahayn qaraabaynu caynkan mar haddii la yidhaahdo hayaydu yeedho waa inay dhinaca rartaan buu leeyahy laakiin haddaay tidhahdaan war maxaa dhacay see si maaha buu leeyahay saas waxaan leenahay caqliyadaasi waa caqliyada badwigu uu nooliyey waxaan ku tilmaami karaa inay tahay waxyaabaha dhibta ah ee ayna haysta qaar ka mid a waxaan kaloo odhan karaa haddayna dhe caqabad caalamiya jirta oo mashaakil caalamka saddexaad ku wada haysa oo ayna dhe caqaba shacbiyo daakhiliya bayna haysata oo ay ka mid tahay jahaalada tirada badan leh ay ka mid tahay badaawada ama cadamu taxadurka ama qiyamkaasi aan dadku qadarinaynin ee waxyaabahan oo dham ay ka ratibmaan waxaa kaloo intaa raaca baynu leenahay saytarat alcilmaaniyiina cala alxukm maamuladana caalamka islaamiga waxa haya dad lagu tilmaamay inay cilmaaniyiin yihiin ama dad mabaadi'da bini aadamka ka doorbida mabaadi'da alle subxaana wa tacaala inay ilaahay kiisa raacaan ka doorbida ka kale ama aan odhan karo waxa isbedelay caalam alislaami waxa weeyaan qofkii xukumayey laakiin mabda isma bedelin masalan soomaaliya markii ingiriis baxay ama talyaani baxay maxaa isbedelay waxa isbedelay bini aadamka diirkoodii ninna meesha wuu ka tegey ingiriisi nin soomaaliyeedna wuu fadhiistay laakiin systemku waa kii uun waxba lagama bedelin systemku waa kii uun waa sababta keentay waxaa la yidhi nin reer baadiyo soomaaliyeed ayaa aad buu ula yaabay xoolihiisii buu keensadaa la yidhi magaalada hargeysa dabeetana waxaa la yidhi cashuurkeen iyo waxa kan isagu wuxuu islaa dee waxaa ingiriiska wata iyo gaalka laakiin markii gaalkii kacay bay idhahdeen keen waxa kan wuxuu yidhi war gaaladii waa tii tagtay aynu iska kicinay ee maxaa rabtaa waxaa la yidhi maya dawladdii baa oo dawladda hoose aad doonayso waa kan oo dawladdan hoose iyo waxaan doonayaa waa aya buu yidhi waxay idhaheen waa inamadii soomaaliyada caynkaa war iyanan inagu buu yidhi iyana haddaba isu hanjabine inamadu waa inamadeenniya nin walaba inankaaga meesha uga yeedha buu ku yidhi nin walaba inankaaga meesha uga yeedho yacni ninkani wuxuu dareemayey waa caqli nin reer baadiyaa runtii oo xakiima wuxuu dareemayey inaanu helin wax uu dhaafsado ninkii ingiriis systemkii kii ula dhaqmayo inay kuwanina ku wadaan waxaan leenahay waa mushkilad kale oo meesha taalla maxaa xalabaa isweydiin le marka mashaakilkeenu waa waxaasoo dhan oo isdul rasaysan idinma wado kolley xal sixriya iga sugi maysaan yacni intaan wax sheego inaynu berrinta ku dhaqaaqno dabeetana bayna cashiyatin wa duxaaha subax iyo galab inaynagaga qaadanaysa inaynu waxaa ku xallilaa suurtagal maha waa arrin u baahan baynu leenahay wakti dheer iyo dad maskax xoog waa arrin wax badan u baahan waayo ummadda intaa soo burburaysay ee burburba mid uga sii dambeeyey in mar qura ay ku dhisantaa waa wax aada u adag saa daraaddeed waxaynu u baahanay arrimo badan tacaqabaadka caalamiga ee dabadda maan jecli maanta inaan wax badan ka idhaahdo
laga yaabaa marar kale inaan ka hadlo laakiin maanta kolley wax badan ka odhan maayo kelima waaxidaan iyada ka odhanaya qur-aanku wuxuu ina barayaa mas'ala odhanaysa haddii lagu jabiyo cadowgaagaa xoog badan inaad had iyo goor marmarsiyaa ka dhigta maaha problemku aduu kaa yimi uxud baa saxaabada la jabiyey dabeetana way qaadan kari waayeen ana haadaa bay idhahdeen miyaana iyagu gaalo ahayn miyaana anagu muslimiina arrinkan isuu u dhacay qul huwa min cindi anfusikum baa ilahay ugu jawaabay idinka xaggiinay ka timi problemku baa ilahay yidhi aayad kale ilahay wuxuu leeyay wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya haddaad la timaadaan baa ilaahay leeyahy asabr almatluub sabarkii laydinka rabay noloshu waa sabir noloshu waa halgan aad dul qaadato o ogolaato inaad u dhaadaygto gaalkii lala dagaalamaya baa ilahay leeyahy wasbiruu wasaabiruu sabra baa la yidhi oo weliba la sabir dhigto dee ninka waa ishaysaane ha isjebinin markiiba de ku talagal inaad caloosha dhagax ku xidhato wax iska rawdid iyaga waxaan leeyahay ilaahay baa yidhi wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shaya mana aha marmarsiiyo ilaa qiyaami saaca iyadu way jiri doontaa bini aadam loolamaya oo mar bini aadamka loolankiisu uu kaa dhammaanaya ma jirto horena dunida way usoo loolamaysay dibna way usii loolami doontaa halkanna kuma dhammaanayso kuwan kuwa ka xoog badanna muslimiinta way isa soo mareen fircoon oo lahaa ana rabbukum ulaclaa iyo dad dacafo uu gumaysanayeyba waaqacooyin baa ku kala dhex dhacay ilaa xad la kala gaadhay taa iyada markaa uma noqonayo waxaan leenahay ummadeennii jahligan badani haystay ee badwiga ahaa ee xadaarad ka maqnayd ee dadka xukumayaana cilmaaniyiintan ahaa maxaynu ku samayn karnaa awalan waxaa loo baahanyay baynu leenahay ama tabeelaha koowaad aan leenahay waa inaynu maraa haddaynu rabbo ummaddan meel ay mar uun ku hadhsatay inay gaadho waxaan leenahay qofka muslimkaa waa inaynu baraa ama waa inaynu abuuraa ama kobcinaa tanshi'a almuslim almunfasil can almushrikiin waa inaynu abuuraa muslim daate jiritaan islaamiya leh oo taagan u fiirsa arrintan waa masale caqiidada ku xidhan islaamiga ah qur-aanku wuxuu ina barayaa qofku markuu islaamayo inuu waxna ka gaaloobayo waxna uu rumaynayo ilahay wuxuu leeyay faman yakfur bitaaguut wayu'min billah ninka taaguutka waxaa hayrullahiya ka gaaloobay ee dabeetana rumeeyey alle subxaana wa tacaala faqad istamsaka bilcurwati alwufqa wاladiina اjtanabuu طaaguuta an yacbuduuha waanaabuu ila allahi lahum اlbushra kuwa ka dheeraada inay caabudaan alle hayrkii ee ilaahay u soo noqda lahum اlbushra waxaan leenahay laba shay baa muhima gaalnimada iyo waxa la xidhiidha in laga dheeraado oo ah bay leenahay qasiimu liimaan dhambalka kale iimaanka arrintan maxaan uga jeedaa waxaynu ka warramaynaa macaalim siyaasiye xaggee baynu caqiidadii iyo iimaankii ugu noqonnay waxaan leenahay almafhuum siyaasi alislaami wuxuu ka dhambalmaa caqiidada islaamiga ah waa baab ka mida min abwaabi alcaqiida waa baabka ah alwalaau walbaraa qofku inuu garto cidda uu u hiilinayo iyo inuu garto cidda uu ka hiilinayo haddii qofkaas muslimkaa la abuuro oo lasoo bixiyo qof muslim ah oo garanaya cidda uu hiilinayo ee cidda uu ka hiilinayo first stepkii baad qaado maxaan taa uga jeedaa waxaan leenahay qof kastoo muslima waa inaynu baraa inuu ka jawaabi karo qofka muslimka waa inuu isweydiiya man ana kumaan ahay anigu ma waxaan ahay nin humanitarian aaminsan oo adyaanta iyo waxaan le waa waxaan qiimo badan samaynaynin ee bini aadamkaa la ilaalinaya say ku dacoonayaan qaarkood oo markaa insaanku meel kasta uu joogun baan u doodaya anigu saasaan aaminsanay ma waxaan ahay nin aaminsan midabka madowga oo afrika iyo ciddii ka timi baa la dulmiyey oo xornimadoon baan ahay nin madow dagaalamayo dadka madow baan leeyahay xornimadooda hala siiyo anigu ma waxaan ahay nin maya intaa kasii hooseeyo kaasi qaarad buu joogaa kii hore caalami buu iska dhigay kanina qaarad buu joogaa mise waxaan ahay nin intaa kasii hooseeyo oo
ilaa waarinta af soomaaliga ku hadashaan uu dad soomaali baana la yidhaahdaa xuquuqda ummadda soomaaliyeed baanu u doodaynaa soomaalinimadaanu ilaalinaynaa mise waan ka sii hooseeyaayo waxaan anigu leeyahay war inuu nin reer hebela baan ahay reer hebel uun xaqooda iyo dantooda iyo shabaabkoodu say usoo bixi lahaayeen arrinkooda ayaanu ka shaqaynayaa cidda kale wax igama saar kumaan ahay waxay leeyihin qofka muslimkii waa inuu gartaa kumuu yahay intaasoo nin waa iyama ma nin ina nebi aadam oo reer nebi aadam u doodaa ma nin afrikaan oo dadka madow u doodaa ma nin nationalist oo waddankii uu ka yimi u doodayaba ma nin ka sii horeeyo qabiilista ahoo dee reerka iyo dantiisii ka doodaya kumaan ahay waxay leenahay muslim baanu nahay muslim ayaanu laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah baanu leenahay waxaanu la bahwadaagnay wixii intaa yidhaahda ee ku dhaqmaanu bahwadaag lanahay waxaanu ka bahnahay oo ka dhannahay wixii aan taa rumaysnayn waxa uu qur'aanku iyo diintu ina baraysaa markaasi inaynu u hiilino ama bah la noqonno qof kasta iyo jamaaco kasta iyo shacab kasta iyo qabiilo kasta iyo dad kastoo muslimiina islaamku waa mabda'a universalism ee nationalistba maaha waxaan la bahahay cid allaaliya cidda intaasi haysata waxaan ka baha ahay oo ka dhan ahay cid allaaliya ciddaa ah diimaha kale iyo kristan iyo yahuud iyo cilmaaniyiin iyo qoomiyiin iyo qabiilistiya waxaasoo dhanna ka bahbaana lama dhanihi waan ka soo horjeedaa taa macnaheedu waa maxay waxaan leenahay waa inaynu barraa qofka muslimka ahi cidda uu hiilinayo haddii la jihaatamayo haddii la isdooranayo matalan doorashadu waa maxay dimuqrasigaynu maqallaa waa la isdoortaa waa ka doorashadu waa maxay laba nin ama saddex nin ama afar nin ama kooxa isa soo taagaya kooxahani maxay ku andacoonayaan inuu isagu yahay ummadda ka u fiican ee xukumi kara maamul iyo nidaamna inuu wado qofka muslimkaa waxa saarani waa maxay dadkii markaa xukumka doonayay bulshaday su-aal weydiinayaan ah war noo kala markhaati fura yaa habboon inuu meesha maamulo ama yaa xaq u leh inuu wax maamulo waa shahaada waa markhaati qofka muslimkii markaa ayuu ugu ridaya hadday noqoto maala qadiyaddu taa waxaan gartay anigu kaan ahayde waxaan ogahay inaan nin muslima ahay waxaan ogahay inaan kitaab iyo sunno rumaysnay waxaan qiimeynayaa dadkan hortayda jooga kitaab iyo sunno ciddaan u arkaya inay raacsisantuman dee ugu ridaya ka kale ama aanu isku reer ahaano ama aanu isku magaalo degno ama aanu kala fogaano waxba ugu ridi maayo xaqayga iguma leh waxaan baraynaa qofka muslimkii hadduu kaa kale ugu rido matalan intaynan baa isu timi waxaynu toronto ciddii maamuli lahayd ee muslimka toronto hogaamin lahayd oo waa layna weydiiyey waa markhaati warqadda yarayna halku ridayna hebel baa mudan inuu ummadda muslimka hogaamiyo waa markhaati markhaati beenaale haddaad furtana wax allaaliya wuxuu qofkaasi dhimo ilaa qiyaamu saaca qaybtaadaadadna leedahay ilaa adaa kursiga saaraya haddaynu isu nimaadno oynu hebel saarno oo aad og tahay hebel inuu mujrim alla ka go-an yahay oo aanu waxba sii daynaynin waad taqaanaa hebeladan oo dhan waad og tahay hebel inuu mujrim yahay dabeetana waad saa ugu riddo wuu fuulay wuxuu dilo iyo wuxuu dhaco iyo wuxuu boobaba qaybtaadaad leedahay adaa markhaatiga furay marka horay ahayd inaad markhaatigan qarin ilaahay baa le walaa taktumu shahaada waman yaktumhaa fainahu aasimun qalbuh wallahu bima tacmaluuna caliim alaa wa shahaadati zuur buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam waxaynu leenahay waa inaynu baraa qofka muslimka ahi dareen ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caqiid ahaan iyo mid walba inuu ka soocmo qofka kale aan muslimka ahayn ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa gaaladii maka ayaa alla leeyahy waa la cadaabi lahaa laakiin mu'miniin baa ku dhex jirta oo diidday inay ka dhaafacdo way mulaaqnayduun low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaynu leenahay waxaynu baraynaa qofka muslimkii cidduu u gargaarayo ilaahay baa wuxuu leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuuluh waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna الصalaata wayu'tuuna الzakaata wahum raakicuun waman yatawala allaha warasuulah waladiina aamanuu faina xizb allahi hum اlgaalibuun ya ayuha aladiina aamanuu la ttakiduu aladiina اtakaduu diinakum huzwa walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wاlkufaara awliyaa wاtaquu اllaha in kuntum mu'miniin
alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala inama wa adaatu alxasri waalqasr war in kaleba ma ahe baa ilaahay leeyahy cidda aada u hiiliso quri waxa weeyaan hadda oo keliyi ilaahay iyo rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay kuwa iimaanka laga helay baa weliba sifaat la saaray aladiina yuqiimuuna asalaata wa yu'tuuna azakaa baa ilahay yidhi kuwa salaada tukanaya ee zakada oogaya yacni kuwa true muslimka ahee raba islaamnimadiisa inuu ku dhaqmo markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy cidda cid kale weli ka dhigtee u hiilisee u gargaarta kuwaas dee meel daran bay ka dhacayaan weeyaan waxaynu leenahay markaa waxnu u baahanay inaynu soo saarno asiyaasa alislaamiya waxay ka bilaabantaa in la baro qofka muslimkii cidda u hoylinayo qofka muslimkii dunida kama hurdo maaha nin masaajidka ku jiro qura waa nin waaciya cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa taqaanin in dagaal dhacay dagaalkaasi wuxuu dhex maray laba dawladood oo dawladii dunida markaa ugu waaweynaya adduwal alcaalamiya aynu ku tilmaami karno halka maanta duwalka reer galbeedka iyo bariga iyo ay ahaayeen duwalkii waagaa imika ka taliya waagaa waxaa jiray laba dawladood oo waaweyn oo dunida ka taliya midna bershian bay ahayd midna romanskii bay ahayd waa labada quwe caalamiga markaa gumaysan jiray caalam ilcarabina iyagaa qaybsaday xabashidan yaroo yaman ka qaadato xabashidana waa kuwii bershiya ka qaaday ilaa yaman bershiya xukumi jirtay ilaa khasaniya inta sarana waxaa xukumi jiray romanska dabeetana labadii dawladood baa isdilay dagaalkaa taqaanayne weyn ayaa dhacay heracles intaanu fuulin boqortooyadii rum waa tii la jebiyey ilaa iyo qustantiniya meesha la yidhaahda ayaa la soo gaadhay marka istanbul magaaladan loo yaqaano agagaarkeedaa la yimid dawladdii romanska waa loo dhameeyey muslimiintii maka joogtay iyo gaaladii baa isqabtay gaalada mushrikiintii waxay la yara bah yihiin kuwan majuusiyiintaee dabka caabuda iyagu dhowrka ilaah rumaysan qoladan mu'miniintiina waxay la yara bah yihiin kuwanun dee ahlu kitaabka ee kitaab iyo wuxuun hayay dabeetana waxay gaadhay xad oo abibakar damco inuu wax la dhigto cidda helaysa waa intaan rahnigii waxaan aan waxyaabaha nooca kana la xaaraam yeelin dabeetana ilaahay baa qur-aan soo dejiyey masalada ka warramaya alif lam mim gulibat الruumu fi adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuun fii bidca siniin baa ilahay yidhi sanado aan tobanka gaadhin waa wakti aan la islahayn dee dib soo kacaysaa dawladdii romanska la odhan jiray ayaa qur-aan soo degay odhanaya sanado aan toban gaadhin bay dib usoo noqonayaan baa ilahay yidhi ay xukumayaan waa lagu qaslay muslimiin bal nimankana waxay ku hadlayaan dee dawlad lagu kala tegay oo aan xoog u hadhin oo waxba ayaa qur-aanku leeyahay way soo noqonaysaa sanawaad yar dabadeed marka waa la qaadan kari lahay taarikhda waa taqaanin in uu heracles ninkii la odhan jiray uu soo kacay oo dabeetana wax soo sameeyo ilaa iyo bershianiskii dib u jebiyo meesha uu qabsaday ama iyaga dib u jebiyey waxaan uga jeedaa qofka muslimkaa dadku waa inuu u kala socnaada ilaahay baa wuxuu leeyahy wakadalika nufasilu laayaat walitastabiina sabiilu lmujrimiin aayaadkaan cadcadaynayaa baa ilahay leeyay si ay u caddaato waddada kuwa dembiilayaashaah qofka muslimkii markaa dembiil oo dhan waa ka bah waxaan uga jeedaa xadiidkuu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam cabdillahi ibnu mascuud baa nebiga wuxuu ku lahaa dadku khayrkay nebiga weydiin jireen anna sharkaan weydiin jiray waayo makhaafata an yudrikanii buu yidhi inaanu isoo gaadhin ka xun waan baranaynaa maxaanu baranaynaa ma waxba ka faa'idaynaa ma inaan dhibtiisa ka nabad galno inaan mushkiladiisa ka bixi karno waxayn leenahay waxaynu u baahannay inaan wacyiga dadka muslimiintaa dib u soo celino inuu garto qofka muslimkii cidda u hiilinayo haddaad jihaatamayso waa inaad muslimkii ka heli karta awood waa inuu kugu qanacsanya inaad qof muslima tahy waa inaad mabaadi'daadii u caddaysa waa inuu garan karaa in meesha tan islaam iyo gaalnimo ay tahy haddaad tahay kuwa ku qanacsan in sanaaduuq liqtiraaxta wax lagu rido waa inaad dadka kala soocan kartaa u garan karaa qofka muslimkii sidee bay u dhici kartaa yacni jahliga muslimiintu meeshuu gaadhay ama wacyiga siyaasiga ummadda muslimkii meeshuu gaadhay in gabadh alliya rasuulba ka gooday oo aan rabin inay diin wax ku xukunto iyo koox le islaam baanu wax ku xukumaynaa intay doorasho wada galaan ummidi dadka leeyahay anigu ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulkaan idinku xukumaya oo qaadi xuseen fi bakistan
أو قاضي حسين باللغيني سي أمضى صاوغا دادعيه oo sanaaduuqdii lagu riday foodka marka la yimaado ay ummad muslimiini habar yaro Frenchiga ka tagtay oo marka horena diinta Ismaaciiliya haysatay iyadii reerkeeduba ay ugu ridaan inay ummad muslima xukunto si u dhici kartaa waxay ku dhacday dadka muslimiinta wali hurdaan wax loo sheegay taasoo waxay ku dhacday dadkaan garanaynin marxaatiga la weydiinay si u dhici kartaa Sulaymaan Demriyal oo cilmaani la garanaya iyo professor Najmuddin Arbakan intay soo taagaan inay umadi ugu rido Sulaymaan Demriyal waliba hatta بعض أهل السنة أنا أوران كرنا waliba بعض الحركات الإسلامية bay sheegtaan inay ugu ridaan kuwa aan hagaagsaneyn والحركة النورسيين في تونس تركيا أما حركة التبليغ في باكستان برازيل بوتا يقول لي هذا معقول يعني إلى الآن وحويا وعي مسلم كهذا ولي توسبه ولي ما لا أبورين أما ما ينن داعين ضدكي إنك كلا جران كنان قفك أي دورنا يانا ما عدة وحقول رديا وحن لنا مركا السياسة الإسلامية في أول أركانها إن ربنا نكب لونه وإن نبرأ مدة إن الصومالية ده إسلام كيكو أبتر ستيكو دلاتي عدة يوهي لنا يا سيانو أوران نادر كيما ماشي هشتان قوان قرية سيانو أوران كانوا قبل كيما ماشي شوقا وان قرية سيو قرتك حقية سماها ضدك ودين قرية وأنا قريدين ولالكي هدو يها ولد الشيء أسيوكو أجي هينا وخير بيلي هي هذا واضح قفك مسلم كي مركز سهل يعد بهيسنة يعد وحلقة بسنة يعد تاجر يعد حماية كهلية ثاني الأمر وحن لنا إسلام كن نظام فوضوي معها وحس كصعاون معها ضدك مسلمين تاهي وحل بري إن أمد سكو حدان نقضان إسلامكم ما هي individualist نك الصومالي هو individualist وحي قنادنتيس maxaa igu jira meeshan aan ka faa'iideeyaa laakiin muslimku sidaa maaha ninka muslimkii wuxuu yaqaanaa dad muslim la yiraahdo oo danaynayo oo la bahiyay idan iyagu ilaalinaya waa qof bulshaawiyo ummad la nool raba inuu ummad wax la wadaago waa qof ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu ala albirr wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan ilaahay baa la samaha isku gargaarsada xumaana isku gargaarsanina dadka samadoonka ah ama halka ha joogaan ama wadankii ha joogaan ama meel kale ha joogaan samadoonku waa inuu isku xidhnaado dadka wanaaga doonaya waa inay organized noqdaan islaamku nidaam fawdawi ma aha nidaam aan ixtiraamin inay ummadu mid ahaato isku urursanaato waayo shaygu markuu kaliya qiimo ma leh haddaad adigu nin muslimo salaad sax caqiido toosan tahay oo masaajidkiga jirto ka kalena oo masaajidka kale ku jiro hebelna uu ka kale iskaga tukado hebelna uu halkan jooga dad wada wanaagsantiin asaan waxba idin ka dhaxaynin manfac ma lihidin waxaan siyaasadda islaamiga waxay tilmaamaysaa dadku inuu organized noqdo inuu unug jira noqdo walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka muslimka ah waxa uu ku tilmaamayaa inuu yahay kamathali aljasad alwaahid sidii jidh qura baa la yidhi inta inaan xadiidka intiisa kala dooran maxaa jidh qura looga dhigay jidhku qofka bini aadamka jidhkiisu waa wax wada jira waanu kala qiimo badan yihiin qayb waa maskaxdii qayb waa ishii qayb waa dhegtii qayb waa gacantii qayb waa lugtii laakiin waa isku jidh markuu jidhku isku dhan yahay buu qiimo leeyahay haddii isha inta la saaro halkaa la dhiga maxay tartaa waxay qiimo samaynaysaa ma jirto waa il acsaabteedii iyo waxeedii iyo nerviskeedii waxeedii oo dhami waa u dhan yihiin laakiin ma tanfac waayo jidhkii bay ka maqanta jidhkii kuma jirtee meel cidlay taalla waxba ma taraysa markaa waxay ahayd siyaasada islaamiya awal marka qof muslima la sameeyo kadib in la isku dayo in la sameeyo dadka muslimiina isku bah noqon karaan ama dad is og ama dad isku xidhan inay noqon karaan baan leenahay jamaaca ama tarbiya aljamaaciya waa in qofka muslimka lagu tarbiyeeyaa inuu dad la noolaan karo Soomaaligu inta badan haday wax isku darsadaan way isqabsadaan nabiyullaahi daawud quraanku wuxuu ka sheekeynay inuu yiri wa inna kathiran min al-khulata'i
layabغي bacضهm عalى bacض إla اladina آmanuu وacamiluu الصاalixaaت وaqaliil ma hm. wuxuu qur-aanku inoo tilmaamaya dadka inta badana wax isku darsataa way isku xadgudubtaa. ila اladina آmanuu وacamiluu الصاalixaaت baa la yidhi, kuwaa mooyaane. yani min صifaati اlmuؤmin aladi yacmal الصاalixaaت waxaa ka mid ah inuu dadka wax ku darsado aanu ku xadgudbin. waa in loo traingareeyaa markaasi suu dad wax ula lahaan lahaa. innaga ummadeenna waxaad moodaa waxaa dad ka dhexeeya ninba male, waa kii usoo horeeya iskuolkaa loo imanaya, kii ugu horreeya baa jinkada ka dhufsa, ka ku-xiga odhan maayo waar ka daa, waayo wuxuu arkaa waxaa cidababa lahayn. wax laguma tarbiyeyno lama barin in dadku wax wada lahaado, in dadka wax ka wada dhexeeyaan. waxaan leenahay ummadda waa in lagu tarbiyeeya inay wax wada lahaan karto, in wax wada ka dhaxayn karaan. walidalik baa diinta islaamiga waxayna bartay xataa lcibaadaadka alle lagu caabudayo in la caabudo iyadoo la isku xidhan yihi. salaadii baa la yidhi salaadaad keligaa tukato iyo taad jamaca masaajidka la tukato maxaa udhexeeya 720 ajar. cibaado ahaantay leedahay ka soko waxaad ka baranaysaa training kaloo ah inaad dadka la noolaan kartid, in dadku is arki karo, in laysra'yi weydaarsan karo, in kii haniga aha iyo kii daciifka aha iyo kii jaamiciga aha iyo kii waxmagara wuxuba inay meeshii isugu yimaadaan, in dadku isbarto oo waa gaaladu waxayna yidhahdaan social clubs baa la sameeya si dadku isu barto oo laisku ra'yo oo laisugu yimaado. social clubska islaamku uu leeyahy waa masaajidkan, waa salaadan jamaacada. dadku wuu imanaya, mujtamacii o dhan baa isku xidhmaya, waa la isku baranaya, waa la isku organize garaynaya, waxa xun baa la isugu sheegay. waa meeshay ummadda muslimka isku xidhmi kari lahayd. waxaa layna baray inay waxeenu nidaam iyo waqti iyo wax walba ay ku salaysnaadaan. walidalik baa ilaahay salaadihii wuxuu yeelay waqtiyo. 5 goor baad tukanaysaa baa la yidhi, waa programmed. qofka muslimkii qof meel iska fadhiyo wuxuun cuno waqtigiisu sheeko ku luma maaha. qofka muslimka waa qof programmed ah. waxaa la yidhi maalintii 5 jeer baad tukanaysaa, sanadkii mar baad xajinaysaa, 12 bilood bil baad soomaysaa. wax waliba time bay leeyihin. wakti kale inay ku dhacaan laguma ogole, lagu dhaha waktigaha ku dhacaan. taa waxaa loo yeelayaa in lagu baro oo aad trained u noqotid qof inaad noqon karto dad la noolaan kara, qof wakti ilaalin kara. haddaynu ballanno nidhaan muxaadaradeedu maanta 7 ay bilaabmaysa, waxaad arkaysaa inagoo 8 bilownay. cid ilaalinaysaa ma jirto. maxaa lagu baray salaada inaad saacaddaa tukato? waa inaad ilaaliso waktigo aad always noqoto qof time limitkiisu aanu wax badan xamili karin, tolerance badan aan lahayn, inuu waktiga wax walba ku ilaalin karo. waxaan leenahay islaamka dhammaantii waa nidaam. walidalik baa nebigu alayh salaatu wasalaam markay tukanayaan xoog buu safi jiray, markay dagaalamayaanna xoog buu safi jiray. sida dagaalku safku ugu baahan yihiyo nin waliba dhufayskiisa inuu galo iyo halkii qaabkii loo sallaxayo ciidanku uu ka baqayo haddaan loo sallixin qaabkan in la jabiyo, ayaa xataa salaadiina loo sallaxaya inuu caynkan u dhacdo. waxaan leenahay qadiyadda labaad aynu u baahanay waxa weeyaan markaynu abuuray muslimkii waaciga ahaa inaynu abuurro muslimkii wax ka dhexeeyey ama organizedka ahaa ee nolosha wada wadaagaya, noloshu ka dhaxaysay, ee isku dayayey in noloshiisu isku xidhnaato si kastaba ha ahaatee. waxaan leenahay wuxuu nebigu tilmaamaya yadullaahi maca aljamaaca waman shadda shadda fi nnaar. ilaahay taageeradiisu ama gacantiisu waxay la jirtaa alle, jamaacada ka keli noqdaa naar buu ku keli noqdaa buu nebigu ku tilmaamaya. wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam facalaykum biljamaca fainamaa yaakulu الdi'bu min alghanami alqaasiya. war bulshada ku jira ama jamaacada la socda, yaygu wuxuu cunaa maxay neefka xoolaa ah ka firdhadkee cidlada mara. waxaynu sheeganaynaa dad la yidhahda ahlu sunna waljamaaca. ahlu sunna waljamaca waa maxay? ahlu sunna macnaheedu waxa weeyaan waa dad ugu dhaqmaya islaamka sidii uu nebigu jideeye sunnaha u ahayd calayhi salaatu wasalaam. isla markaasi waa dad jamaaca ah baynu leenaho isku xidhan. waa dad mujtamiciina oo noloshoodu ay ka dhaxayso oo isku xidhan. markaasay qaateen mafhuum la yidhaahdo ahlu sunna waljamaaca, yacni inay ururna yihiin, waxay ku urursan yihiinna inuu xaq yahay ayay tilmaamaysaa. waxaan leenahay marka wuxuu islaamku ina baray si aynu qofka kaa ugu train garayno waa inaynu isku daynaa inaynu ka hor tagno wax allaaliya wixii bulshada kala dilaya wada jirkeeda. markaasaa la yidhi war ha isxamanina, ha iscaayina, ha ismaagina, naanaysa ha isugu yeedhina, ha istuhumaysanina. waxaan maxaa loo leeyay? waa precautions loogu talagalay bulshadu inay wada noolaan karto. haddii dacaayadaadu badato dadka badhunba kaa indhalaabi doono way kaa tegayaan.
sida daraaddeed inaad qofna dacaayadayso laguma ogola waayo haddaad rabto inaad bulsho wado qofka haddaad iintiisa u sheegto ku tilmaamto maalinta dambe isagoo kaa weji gabxayo kaasii fogaanayo umaad arki doontaa haddaad rabto bulsho inaad wado abidkaa kaftanka ha ku badinin inaad qofka ceebayso hadduu kaa maqan yihi ha isku dayin inaad mala xun ka malaysato ha isku dayin inaad naanays ugu yeedho walaa tanaabazuu bilalqaabi bi'sa ismu lfusuuqi bacda aliimaan baa ilahay leeyay war naanaysa ha isugu yeedhina iimaanka de yani waa lagu faasiqoobaya iimaan dabadii kaas baa wuxun baa alla leeyahy subxaana wa tacaala wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaynan xataa isxaqirin qofka hayasi dadku wuu kala garaad badan karaa wuu kala cilmi badan karaa wuu kala xoog badan karaa wax kasta waa lagu kala sarrayn karaa hayasin haddaad yasto dadka badh baa kaa tegi doona wuxuu nebigu ku tilmaamayey dembiba waxaa kugu filan buu nebigu lahaa maxay bixasabi imri'in maxaa qofka shar ugu filan an yaxqira akhaah inuu walaalkiisa kale muslimkaa inuu xaqiro waxay leenahay haddii la rabo bulshadu inay wada noolaato waa ku waajib inay wada noolaato la isku xidho laakiin waa in laga ilaaliyaa waxa bulshada ku keenaya inay wada noolaan kari weydo oo ah inay isdacaayadayso inay iscaydo inay ismaagto inay isxamato inay waxaan oo dhan samayso waxaasoo dhan waxa loo diiday inay isku xidhnaan karto si loo heli karo waxaynu leenahay ilaa xad buu nebigu ku tilmaamaya qofka muslimkaa inay u bannaan tahay 3 casho qura inuu cadho kaga maqnaan karo wixii ka badani waa dembi bal axaadiista nebiga ka asaxday waxay tilmaamaysaa 3 casho ka badan ninka walaalkii cadho kaga maqnaada famaat dakhala annaar waa xadiis saxiixa wuxuu nebigu leeyahay 3 casho ka badan ninka walaalkii cadho kaga maqnaada ku dhinta dabeetna isagoo cadhadii ku jira kaasi naartuu gelayaa buu nebigu leeyahy wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam walaalkaayo aad sanad ka maqan tahay inay la mid tahay kasafki dami waa xadiis saxiixa walaalkaa oo aada hijra sanada ka gashay inay la mid tahay adigoo dhiiggiisa daadiyey waayo waanay kuu banaanay inaad intaa cadho ku maqnaatid cadhadu maximum bay leedahay 3 days qofka bini aadamku iska cadhoon karaa laakiin maximum timeka lagu ogolaya waxa weeyaan 3 maalmood maalinta hore dud maalinta dambe iska yara afbuur maalin saddexaadna waa inaad bini aadamto maskaxda isticmaasha waxa lagu siiyey maskaxda inaad ka shaqaysiisee dani kuuguma jirto inaad cadho uun tidhaahdo baan ku maqanay waxaan leenahay waxaa laynoogu talagalay si aan marnaba bulshadu u dumin ayaa waxaa laynoo tilmaamay xataa bini aadam baynu hadday dhacda un dhacdo acmaasheena ugu waaweyn waxaa laga dhigay inaynu islaaxu daatulbayt samayno oo waxaa la yidhi nebigu wuxuu yidhi saxaabada ma idiin tilmaamaa wax ka khayr badan soon salaad iyo zako waa 3 arkaanulislaam ka mida 3 arkaanulislaam ka mida shayga 3 laysu geeyey ka khayr batay cajab u qabaade islaamku tiirarku ku dhisnaaba 5 bay ahaayeen marka shahaadadii iyo xajkii laga yimi 3 ka mida baa la isku daray markaasaa la yidhi 3daa wax ka khayr badan ma idiin sheega ha markay yidhaahdeenna wuxuu nebigu ku yidhi islaaxu daati lbayn dhexdiinoo hagaajisaan fasaadu daat lbayn wuxuu nebigu ku sheegay dhexdiinoo xumaataa inay xaaliqatay mid xiirtay inay tahy idinma lihi timahay xiirtaa baa la yidhi diinta ay xiiraysaa waayo acmaashiinaba inaan la aqbalin baa laga yaaba waa kii xadiidkii saxiix muslim sheegayey maxay labada walaale isqabta maalinta khamiista iyo isniinta camalka alle loo bandhigo in iyaga uu ilaahay yidhaahdo dadka kale wixii aan ilaahay u shariig yeelin dembigooda la dhaafaa kuwaase waxaa la yidhahdaa iyaga arrinkooda suga xataa yastalixa ilaahay intay ka heshiinayaan baa la yidhahdaa lala sugo waxaasoo dhamme waa wax loogu talagalay in lagu ilaaliyo bulshada wada jirkeedu inaanu marnaba lumin waxaan leenahay marka shayga labaad aynu ku dhawaaqayna muslimka waa inaynu waaci ka dhigna oo u garan karaa cidduu u hiilinayo iyo cidduu ka hiilinayo waa mar labaade muslimka waa inaynu baraabaynu leenahay inuu la dhaqmi karo muslimka kale oo organizediyey oo wax ka dhexeeyaan oo nidaam iyo maamul iyo dan iyo ahdaafi ay ka dhaxayso iyo strategy waa in wax ka dhexeeya ka saddexaad aan leeyahay masalada waa lagaga bixi karaa waxay yidhaahdaan culamada culumta bini aadamka darista baahidu bay yidhaahdaan ku saabsan baahiyaadka maadiga gaajooyinka iyo waxa kani dadka marar badan waa isku xidhaan waa laga yaabaa mudaharaad maadiya iyo waxa in la sameeyo laakiin baa la yidhaha masalada qiyamku valueska ku salaysani
inta badan waxay u baahan tahay qiyaada xakima dadka ku hogaamisa waxa kanoo dadku eegto ee iyadu ma aha wax had iyo goor dadku ku ururo waxay leenahay waxaynu u baahanay inaynu baranno haddii aynu nidhi waa tabeelaheenii labaad aynu nidhi waa inaynu wada noolaanaa wada joognaa waa inaynu barannaa markaas sidaynu isu maamulaynay iyo ciddayna maamulaysay waa inaynu barannaa qofka muslimkii maxaa wax lagu doortaa haddii laynaba idhaahdo bal wax doorta maxaa wax lagu doortaa qofkaad dooranaysaa waa qofka astaame heele markuu maxay leeyahaad dooranaysaa markaanu se maxay lahayn baad diidaysa haddaad se doorato qaabkaad ula dhaqmaysaa ama qaabkee loola shaqaynaya waxaan leenahay qiyaadada islaamku uu yaqaanaa laba shay bay u baahan tahay labadaa shay haddii mid la waayo qofkaasi ma qaban karo ummad inuu hogaamiyo markaan hadda hogaaminta ka warramayo dadka had iyo goor waxaa maskaxdooda kusoo dheeraysa un madaxweyneha war madaxweyne maahe noloshoo dhan weeyaan organizationka yar aa leediin masaajidka ka meeshuu doonaba ha joog 10 qof haddaad isku dayayso 3 qof ka kaaleeya gurigaaga carruurtaada iyo islaantaada iyo intan markaad hogaaminayso hogaamintu waxbay u baahan tahay hogaamini waa hogaamin alqaa'id mashkiladda dadka haysataa waxa weeyaan qiyaadaadka hoose lama tababaree ka sare muxuu waxa u noqon waaya baa la yidhaha haddaan xaggan hoose la iska train garayn xagga sarena la noocun bay noqonaysaa waa the same quality qiyaadaadku waa inay dhismaan oo kobcaano uu qofku kor usii socda min ardaynimadiisa ilaa iyo intuu mas-uul ka noqonayo reer ka guursanayo ilaa iyo intuu maamul ka qabanayo bulshada wax uga qabanayo ilaa iyo intuu hore usii soconayo qaa'id kasta oo meel kuu qabanaya islaamiya waa inuu laba shay leeyihi wa ilaa uma cuntamo inuu ummad hogaamiyo labada shay midi waa ammaano qof la aamini karo waxaan mas-uuliyadda ammaanada qof qaadi kara waa inuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka inugu baraya in cidduu shaqo u dirtay oo dhan uu sifadan ku sifeeyey malakuljibriil waxaa loo diray shaqo ah inuu maxay sameeyo waxyiga inuu ambiyada u keeno ilahay wuxuu ku tilmaamayaa muطaacin hama amiin ammaana lagu sheegay ilahay wuxuu inooga warramay ambiyada fii suurati shucaraa ilahay wuxuu inoo sheegayaa nebi waliba inuu leeyay inii lakum rasuulun amiin inii lakum rasuulun amiin buu nebi waliba shucayb muuse luut saalex huud nebi waliba wuxuu ku dhawaamada hogaaminaya wuxuu soo dejiyey nebiyullaahi yuusuf khito 15 sannadood dhaqaalaha waddanka lagu ilaalin karo 7 sano abaara iyo 7 sano wax lagu 15 sannadood buu nebi yuusuf khitadeed la yimi ninkii casiiska ahaa ee meesha haystay markuu u dhiibayey muxuu ku yidhi innaka alyawma ladayna makiinun amiin buu yidhi innaka alyawma ladayna makiinun amiin sifat alamaana buu ku sheegay nebiyullaahi muusa intaan nebiga laga dhigin markii uu ka cararay masar waa kii soo maray 2 hablood oo ceel ka waraabsan kari waayo oo rag uu meeshii xoolaha ka waraabsanayay intuu u yimi yidhi maxaa meesha ka qabanaysaa ay yidhaahdeen waxaanu sugnaa marka beeshani biyaha ka baxda kadib baanu ka waraabsanaa dabeetana waa kii uu waraabiyey hablihii waa kuwii aabbahood ku noqday inan ka mid a hablihii baa waxay aabbahood usoo bandhigtay nin fiican oo xoog badan oo dee shaqayn karaya inay soo aragtay markaasaa waxay leedahay abba ninkan shaqo sii ahaynu xoolaheennan iyo waxaynan dee odaygiina waa da iyagina waa hablo waa xishoodeen nin bay u baahdeen markaa shaqaalo oo waxaan ka shaqeeyo mu'ahilaadka certificateska markaa u qadimaysa muuse ay leedahay shaqada uu ku leeyahy waa maxay ina khayra man istaajarta alqawiyu amiin bay tidhi cid shaqo la siiyo waxa u khayr badan bay tidhi maxay alqawiy alamiin amaanay ku sheegtay xataa nebiyullaahi sulaymaan oo boqor aada u cajo badan la ahaa maamulkiisana ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo inuu xataa xayawaan uu ku jiray iyo jin iyo ins iyo wax tiro badan inay ciidamadiis ka mid ahaayeen ayaa wuxuu damcay in carshu balqiisa lasoo qaado dabeetana yaa soo qaadaya buu yidhi waa shaqo shaqadaasi waxay sheegaysaa in saba ama sanca iyo meelahan in carshi laga qaado oo la geeyo falastiin around 1000 kilometers shaqada kamberigii la siinayay baa loo baahan yahay mu'ahilaadkii baa la qadimanaya markaa shaqadan lagu qaban kari lahaa
cifriit min aljinni baa raba inuu shaqadan qabto cifriit min aljinni muxuu ku yidhi nabiyullaahi qaala cifriitun min aljinni ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wainii calayhi laqawiyun amiin buu yidhi alamaana buu sheeganaya waxaan leenahay cidda wax loo diranaya jin iyo insi waxay doontaba ha ahaatee waa inuu noqdaa maxay cid ammaano ku sifowda ninkii shalay ku xaday ee daraad ku xaday ee tii ka horraysay ku khiyaameeyey saa dambena inaad doorataa snot logic caqliga wax geli kara maaha kaad dhiiji iyo wasiir kala quusatay inaad madaxweyne ka dhigata haddana caqliga wax geli kara maaha kii mu'adinka noqon kari waaye inaad imaam ka dhigtaa caqliga wax geli kara maaha kii xisaabiyaha ku fashilay organizationka xisaabin kari waaye in organizationka madaxa looga dhigaa waxa madaxweynuuna ka fekerin all the system meeshu doonaba ha ahaado maamul mar hadday timaado ninku waa inuu ammaano leeyahy qof wax lagu aamini karo waa inuu yihi thani lamr qadiyo labaad baa jirta oo u baahanayana ammaanada iyo daacadnimadoo qura laguma helo shaqada wadaad baana hoo keliya igu dhiibiyana socon mayso waa in wax kale la socdaa lagu ogolaya wadaadnimadaada iyo ammaanadaada laakiin waa inaad mu'ahilaad kale certificate kalena waa inaad sidataa waxa ka sheegaya waa maxay iyo alcilm qofku waxaanuu rabo in loo dhiibo waa inuu aqoon u leeyahy waxaanuu rabo in loo dhiibo hadduu imaam noqonayo imaamka shaqadu qabto waa inuu leeyahay aqoon hadduu organization maamulayo organizationkan shaqadan uu qabto waa inuu aqoon u leeyahy aqoontu aqoon xoogeedna way noqon kartaa mid maskaxeedna way noqon kartaa dadka badh buu nebigu kala teliyey inaanay shaqaba dadka u qaban iyagoo dadkii u fiicnaaya muxuu ku yidhi abidar alkhifaariy axad asaxaaba kuwii ugu hor islaamay ka mid ah muhaajiriintii ka mid ah nin la yaqaanoo macruufa ka mid ah nimaan diintiisa iyo ammaanadiisa iyo iimaankiisa la dhaliilayn ah ayaa wuxuu nebiga ku yidhi alaa tastacmilnii ya rasuula allah shaqooyinka maad wax iiga dirtid buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo shaqooyinka maad wax iiga dirtid wuxuu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam inaka imra'un daciif inaka imra'un daciif war nin jilicsan baatuu nebigu ku yidhi jileeca ma diintaa looga jeeday laa wallah abaadar diintiisa jileec kuma jirin nin iimaan leh oo min asaabiqiin alawaliin ka tirsan buu ahaa laakiin waxaa la leeyahay qiyaada ma qaban kartid qiyaadadu mawaahib ilaahay uu bixiyo iyo kuwa muktasib oo la barto labadaba way leedahay yacni qofku wuxuu shaksiyan alla siiyo giftisa iyo wax barasho ku saabsan oo qaabka wax loo maamuliyo waxa kan labadaba way leedahay sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya innaka imra'un daciif bale isagoo la dardaaramaya buu lahaa laa tuwalliyanna xadiidkii tilmaamayay nebigu ku lahaa labana weligaa madaxa u noqon buu yidhi cid ka badan daaya laba qof hadday isu timaado aduu madaxa ka noqonin buu nebigu ku tilmaamayay waxaan leenahay waxay u baahan tahay in labada dhinacba laga hubiyo in la hubiyo qofka aqoontiisa iyo ammaanadiisaba waxaynu leenahay waxay u baahan tahay farsamo siyaasadeed maxaan uga jeednaa tusaalayaal baan idin siinaya tusaaleaan idin siinaya waxa weeyaan bulshadu ma aha saful awalkoo qura yani dadka badh baa waxay haystaa dadka markaad hogaaminayso inaan dee dad aan waxbaba kaaga soo noqonayn inay noqdaan dad waxaad tidhahdana aqbalaya wixii la farana fulinaya wax kastaa soodii u dhacayaan kuwaas waa malaa'ig baa la yidhaha bini aadamka lama yidhaaho kuwa wixii loo sheegaba sidiidii u fulinaya basharka kuma jiraan basharku waa bashar mujtamacaan dad xun lahaynina dunidan maba soo marin mujtamacii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka telinayay inkaar qabayaal baa ku jiray kuwa waaweyn ka mid ah oo aan ahayn hadda dacafat ilqowm aan ka mid ahayn munaafiqiinta maqashaan ee waaweyniinta badani waxay ahaayeen siyaasiyiin dantoodiiyo islaamku isku geli waayey si ama u ogsoonti maalan waxaa qur-aan ku maqashaan ama sunnadoo lagaga warramaya nin la yidhaha cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul waa ninka lagu tilmaamay inuu yahay munaafiqii ugu weynaa cabdillahi problemkiisu xagguu ka bilaabmay waxaynu naqaanaa ansaarta aws iyo khasraj muddo badan bay isdilayeen wax bilaa macnaana way isku dilayeen
waa intaan islaamku soo gaadhin dagaalada qaarkood waxa la yidhaha 40 sano ay socdeen laba awro baratamay baa mid bahal lagu dhuftay dabeetana laba neef oo geela hal mid baa caanihi candhadii iyo dhiiggii caanihi iyo dhiiggii isku darsameen 40 sano baa la istilay hashayadii baa caynkan u gasheen waa noocay Soomaalidu isku dili jirtay oo baradha protein iyo kaan weeyaan waxa la nooca xarbu bucaad dagaalkii ka dambeeyay labadii baratamay mid la dharbaaxay 5 sanadood bay isna isdilayeen waxa soo dagaalay markay qabaa'ilkaasi isku madheen ayaa akhiiran waxay dhaayeen warnamayo bal aan madax qura wada samaysano isku maranayeen mar bal magaalada dajino waa la isku waafaqay waxa la yiri ninkan Abdullah ibn Ubay la yiraahdo aan ka dhigano mas'uul madaxino ah dabeetana ninkan la boqoraaba lagu heshiiyay heshiiska markii la gaadhay iyadoo loo tolayo khirzigi taajkii raayada boqorka ninka marka la caleemo saara baalkii la saari la iyadoo la tolayo oo loo wado ayaa saxaabadii soo hijrootay oo ciidan timo oo ciidan tinimka sunabiga Madiina yiri magaaladii waxay noqotay magaalo islaam dawlad cusub baa ka dhalatay dawlad muslimiin ah Abdullah ibn Ubay wuxuu tirsaday kursigiisa inuu baxsaday kursigiisa in la laayo labdho cid ka qaadayna nabi Muhammad inuu yahay alayhi salaatu wasalaam Abdullah ma isagu lug iyo farasba wuxuu u fuulay dawladda nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam hogaaminaya si uu dumi lahayd waayo wuxuu arkaa kursigiisa isaga loo tolayay oo cid kale ay ku fadhiisatay isaga u muuqday dabeetana wuxuu farsamadiisii oo dhan isugu geeyay sidoo mas'aladan uga hortagi lahaa Abdullah wuxuu isku dayay xooga gaan islaamka ah inuu xiriir sokeeyo la yeesho saddex qabiil oo waaweyn oo qaarkood 700 oo nin oo hubaysan oo dagaal gala ay leeyeen yaani military 700 oo nin oo diyaar qaarkood leeyeen oo yahuuda meesha deganaan jiray banu qanuqaa iyo banu nadir iyo banu qurayda qoliyaha kan xiriir sokeeyo la lahaa qolada la yiraahdo reer banu qanuqaa iyaga waxa ay ahaayeen xilfi wadaag gaashaanbuur bay isku ahaan jireen jaahiliyadii horeba intaanu islaaminba qoladaasi waxaynu naqaanaa inay gabadh muslimada ay qaawiyeen dabeetana nin muslim dagaalamay ninkii la dilay darfashadiin ay dhacday dabeetana calaad ay timi iyaga muslimiintii ba dagaal galay badar dabadeed muslimiintu waxay ku sameeyeen markaa go'doomin ciidankii qolada yahuuda waa la go'doomiyay 15 maalmood markay go'doomisahayeen bay aqbaleen inay isdhiibaan Abdullah ibn Ubay wuxuu arkay xoogagii uu ku tiirsanaa qaybo kamid ah inay khatar ku sugan yihiin intii hore dhan mu islaamina bilka hore dhacdadaasi markay dhacaysay ninka siyaasiga ay xagga loo bato muddo kolba israaciya maalinta shaarka nabadgelyadu shaqeynaya waa inuu xidhaa maalinta ka dagaalku shaqeynaya waa inuu xidhaa meel walba isagu inuu kaaga horeeya waa isaga kursiga dantiisa ah Abdullah berigi hore wuu diidanaayo nabigu markuu soo maro intuu sanka qabsadaabo oran jiray la taqbur alayna war majalisdiina fadhiyo kuwa naga boodhayn golayaasheeda xaggaaga jooga hanoo imanin boo oran jiray halkaas uu taagnaa laakiin markuu arkay dadkii inay raaceen oo dadkii islaamina magaalada isbedeshay ayuu yiri halkan wax kuuma yaalin hadaba bal xaggana hada in aad wax ka tari karto xaggana ku biir waa kii soo ashahatay meesha yimi bil intaanu islaam ahayn bay dhacdadan ay dhacdo nabiga alayhi salaatu wasalaam ayuu yimi isagoo la ahsin fi mawalay nimankan xilfi wadaagtana gaashaanbuurtan ahay cadow iyo carab iyo madow bay iga dhiciyay ayaad maalin qura maxamed oo leena saabulay u samafalo nimanka maanta hal sii daayo waa muslimiinta iyo gaaladiisa sulay gaalada hal sii daayo nabigu iskaga jeestay halkuu ku soo dhigay wuu ka jeestay halkaas abu iska laalaaday fatxada yar khamiisku uu leeyahay dacalkeeda ayuu ku dhigay nabiga isagoo le maanta ku sii deyn maayo ragga hal sii daayo aniga hal sii daayo raggaas walla ciidan oo isdilaya oo dawlad wala dawlado isdilay tii kale isdhiibay soo lahayo ayuu wuxuu leeyahay aniga hal sii daayo nabigu wuxuu qaado ay galad uu sii daayo sababtu waa maxay waxa la ogaa inay bulshada muslimiintii wali aanay xad gaadhin ay isku kalsoonaan karteen ninkan inuu gilgili karo dadka barjabsan karo wali dadka dhexdooda wuxuu ku leeyahay waa nin hebel oo la yaqaano rabshadu bilaabo waa suurtagal inay noqoto rabshad aad u weyn waxa kuugu filan ghazwatu Uhud dagaalkii kala dhacay Uhud dabeetana muslimiintii oo dhan baa soo baxday dhexda markii ciidanku marayay muslimiintu kun quray ahaayeen gaalo dhowr kun 3 kun oo nin oo ciidanina burta Uhud bay joogaan muslimiinta ciidankoodii
ayuu khalkhal geliyey wuxuu is yidhi maanta aad la haysaayo haddaba maanta ha jabaan waa janis buu eeganayaa muslimiintu inay daciif yihiin janisa in lagu soo duulay 3,000 askari inay dul joogaan iyagu 1,000 quraynayiin 1,000 buu rabaa markaa inuu khalkhal geliyo khalkhalku ku bilaabay 300 nin buu jabsaday oo raacay basharku dee marka aanay weli xad wada gaadhin labaclabac badan baa iskaga jirta 300 nin buu ka haystay bale qur-aanku wuxuu sheegayaa xataa qabaa'ilkii islaamiga ee nebiga la socday qaar ka mida inuu duubsan gaadhay oo ilaahay leeyahay faqad hammat id hammat taa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun banu xaaris oo aws ka tirsan iyo banu salam oo khasraj ka tirsan xataa labadaa qabiil wuu jabsan gaadhay wuxuu leeyahay haddaanu dagaal ognay meesha maana muxuu isaga joogi waayey markii hore madiine uu usoo baxay wuxuu u soo baxay haddaanu dagaal doonay waxay inuu madiine iska joogo idhaa warku raaci mayno or nimanka haddaad iska celinayso iska celi oo iskaga hadho laakiin muu hadhina waanu soo raacay falsafadiisu waxay ahayd intuu raaco inuu ciidankan ka kala jabiyo ninka waxaa samaynaya nebigu muu maagin muu canaanan sababtu waxay tahy ilaahay baa wuxuu leeyahy wafiikum samaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin ilaahay baa wuxuu leeyahay mu'miniintahay waxaa idinka mid ah munaafiqiintan kuwo weli dhegaysanayo rag wanaagsan oo haystoo raacaya oo isla ninkiidii baa la xumeeyey ama kan baa waxa lagu sameeye weli la dudaya ayaa idinku jira baa ilahay leeyahy subxaana watacaala nebi moxamed markaasi wuxuu isku wadaa mujtamac munaafiq leh oo mu'minoo daciifa leh oo mu'miniin xooggan leh mujtamac baa la maamulaya mujtamaca la maamulayo wuxuu ku talagelayaa in aanu fursad u siinin ninkan munaafiqe uu og yahay munaafiqnimadiisu inuu kala daadiyo bulshada tan markaasuu wax badana uu sameeyey u dulqaadanaya waxa laga yaabaa adigu markaad aragto nin gaalnimadiisu caddo inkaartiisu inkaar badana ah inaad markiiba tidhaa kan madaxa laga jaro oo lagu boodo haddaad madaxa ka jartana waxa laga yaabaa reero dhaba inay la dudaan waxaad wadoo dhama inay mid awalba xumaantiisa la ogaa inuu fashiliyaa suurtagala ummad dhan oo meel u socotay waxaan leenahay marka ninka qaa'idka ahi waxa laga yaabaa ninka wadaadkii inuu yidhaha wanaaggan baan dadka wanama qofka cadi inu yidhaha dadkii wanaaggan baan u qabano iyana un baabay nacaayayaan ama waxan bay samaynayaan waa qasab qof maamul hayee lacaaya inay dhibaata timaado waa inuu qofku ku talagalaa inuu taxamuli karo waxaan oo dhan inuu qaadan karo waayo miyaad qur-aanka ku aragtee nebi ilaahay soo diray oo si fudud laysaga raacay soo nebi walba waa saaxir iyo waa kan iyo waa kada war noloshu ninka wanaagsani haddaanu halganka gelin uu yidhaahdo wayna maageen ama se wayna caayeen oo dadka caydooda iyo maagistooda ka soo boqoto weligaa meel la gaadhi maayo waxaa qasaba haddaad hadaf leeday haddaad rabto ummadda inaad meel gaadhsiiso inaad mabaadi'daada caddaysato aanaad cidda kaga baqin inaad isku daydo laakiin bulshada inaad isku wadi karto sida daraaddeed ayuu ninkani wax badan buu samaynayay ilaa iyo laga soo gaadho xaadithati lifki iyo waxaasi oo dhan waxaan ka cabsi qabaa inay iga daashaan saa daraaddeed inaan soo koobaa baan jeclay waxay gaadhay xad ghaswatu bani lmustalaq iyo wixii ka dhacayna waa wada garanaysaa xad bay gaadhay uu cumar ninkan u adkaysan kari waayo wuxuu samaynayo oo yidhahda ilaahay rasuulkiisiiyo cabaad ibnu bashar amar ninkan hala dile inkaar qabaha kan hala dilo nebigu muxuu ugu jawaabay cumar wuxuu leeyahy ninkani waa munaafiqo waad ogti intanoo dhacdana wuu sameeyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey uu samaynayey de waa saxaabada markuu isku dirayey markii labadii wiila yaryaraa intay isdileen uu lahaa la yukhrijanna lacazu minha laa dalla uu tilmaamay haddii magaaladii madiine lagu noqdo ragga sharafta leh waatuu lahaa saxaabada isagoo maagaya nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaanu nahayba ilaa kii yidhi mooyaane samin kalbak yakulak buu lahaa eygaaga naaxi ha ku cuneen way soo hijroodeen oo iyaga qaxoontiye noo yimaadeen waxbaanu siino annagii unbaabayna qabsadeen buu leeyahy waa eygaaga naaxi adiga ha ku cunee buu ku tilmaamayaa nebiga iyo saxaabadiisii waa kii samaynayey waxaasoo ficladoo foolxun waa kii samaynayey xataa afkaarta cunaqabat dhaqaale in muslimiinta la saaro oo waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya inuu tilmaamayey in laa tunfiquu calaa man cindi rasuuli illah xataa yanfaduu waar kuwa ilaahay rasuulkiisa iyo la jooga bal dhaqaaluhu ka gooya buu yidhi iyagaa kala yaaci doonee markay waxay liqaan waayaan iyagaa iska kala tegaya nimankan aan ugu saacidaysaana wax siinaysaan aan saaraya laga joojiyo waxaasoo rabasha buu waday markuu rabashkii dawladnimo ka quustay wuxuu waday xaadithati lifk inuu isku dayo xataa si ninka madaxda ah loo gilgilo oo markaasi haybadiisu bulshada intay uga lunto uu u dhici karo ayuu isku dayay xataa inuu been abuurad sameeyo inuu yidhaha nebiga gurigiisa laga samaystaa
oo caashaa sinaysatay iyo kan baa dhacay iyo waxa waa kii sameeyey ee qur-aanka suuratu lmunaafiqiin ay soo degaysay lagaga warramayay cumar ninkan inkaartiisii markuu ka yaabay ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ninkan amaro hala dilo nebigu bal jawaabtuu bixiye u fiirso waa nuduuj siyaasiya waa bisayl siyaasiyuu nebigu joogay wuxuu ku yidhi fakayfa ya cumar ida taxadatha annaasu ana muxammadan yaqtulu asxaabah maxaad u malaynaysaa buu yidhi cumarow haddii dadku ay isugu warramaan moxamed asxaabtiisuu laaya intii raacsanayd baabuu gawda ku hayaa uu dilaa haddii la yidhaahdo bal maxaad u malaynaysaa buu leeyay cadow baynu leenahay cid kaleynu saynaa coladeennaa ballaadha haddii dadku ay isugu warramaan dadkii soo islaami lahaa ama diintan xoojin lahaa maxamed intii raacsanayd baabuu seefta dul hayaa u linaya maxaad u malaynaysaa buu lahaa munaafaqa caynkani waxaa aada u gariiba munaafiqiinta iyo bolosiga isticmaali jireen ninka waxaan samaynaya masalan ghaswatu uxud markii wixii la sameeyey ee uu ciidanka dhan jabsaday ibnu hashaam baa wuxuu idhaahdaa jimcihii ku xigay yacni ninka siyaasigaa baan kuu tilmaamaya aada rabto inaad la loolanto ama inaad ummad ka dhiciso inaanu xumaynin waxaa yidhi markuu ghaswatu uxud 300 nin la noqday ee rabshadii sameeyey ee muslimiintii dhibaatada badani kusoo dhacday jimcihii xigay jibcayaashuu masaajidka iska taagi jiray sida ibnu hashaam saaxibu sira u dhigayo markaasuu khudbad buu jeedin jiray intaan nebigu hadalla khudbadda jeedin khudbaddu waa maxay dadku wuxuu ku yidhahdaa kaasi waa ilaahay rasuulkiisiiyo idin dhex jooga ilaahay baa idinku karaameeyo idinku xoojiyey u gargaaro u hiiliyo intuu yidhahdaa buu fadhiisan jiray dabeetana waa kii dhacdada sameeyey isagoo wixii sameeyey ninka siyaasigii mar hadduu dan leeyahay ma khajilade hadduu shalayta dadka oo dhan halaagay berrinta isagoo indhacado haddana soo fadhiyo wax raadinayo umaad arkaysa is odhan maayo war dhuumo waa adigii wixii sameeyey cabdillaahi ibnu ubay intuu soo noqday iyadoo axaddii uxud wixii laogya ka dhaceen ayuu jimcihii dambe intuu safka hore fadhiistuu istaagay markaasuu yidhi waa kanoo waa ilaahay rasuulkiisii ilaahay baa idinku karaameeyey ha loo gargaaro waa kaasi maasay saxaabadii xanaaqeena idhaha fadhiiso in kaani kugu dhacda ee rasuula loo gargaaro layidhi warigii shalayta ciidanka intan leeg watay baa haddana maanta le waa ilaahay rasuulkiisii ha loo gargaaro yacni waa nin mutalawin oo halkuu ciidan ku heli karo ama shaarku wax ku heli karo unbuu isagu gashanaya waayo dan buu leeya uu rabo inuu gaadho waxaan qadaayaadkan usoo qaadanayaa waxay tahy waxaan leeyahay cidda aynu rabna inu qiyaado u dhiibanaa waa inay noqotaa cid u cuntamaysa qiyaadada weligaa madaxduuna ka fekerin sare kuwan yaryar hoos iyo jaaliyaadkeena yaryar iyo organisationadani waxaan aynu hayno ayay dadku ka koobcaan cidda aynu rabna inaynu u dhiibanaynaa waa inay sifaadkan aynu sheegayna ay leedahay lababa marka kala dooranayaana waa inuu waxaan isku og yahay inuu daacadna yahay aqoonna uu leeyahy waxaan uu wadi karo dadkanna uu ku talagelayo inay yihiin noociyaadka makhluudka ee cumar iyo abibakarna ku jiri karaan cabdillaahi ibnu ubay iyo noociisuna ku jiri karaan inay bulshaduna ka koobnaan karto uu maamulaya inuu ku talagalo iyo inuu garan karo baynu leenahay qofkeenna caadigii cidduu dooranayo markaynu jaaliyaddeenu isu nimaadno in idhaahno yaynu u dhiibanaa waa inay maskaxdeena ku jirtaa qofka aynu rabno inaynu meesha u dhiibanaa kuu noqonayo inaynu garanayno ay waadaxtay inaynu garanayno inuu qofkani waxna maamuli karayo ammaanana uu leeyahy dadkana uu yahay qof isku wadi kara dadkan kala sarsareeye kala liiteen nooc walba qof isku wadi karaya inuu yahay xuruufta dacaa'iga ahi dadka barh baad moodaa inay dacaayadka u jilicsan yihin oo marka dhowr goor wax laga sheega maalinta dambe unaad argtay wixii wadaba intuu dhul ku dhuftay inuu idhaahdo waa nagala taga waxna kama helno waxna kuma qaadana iyagu baanu ushaqaynaa habeen iyo maalinna waxbay naga sheegayaan inuu ooda jabiyo waa siday ragga badh la rabaan wax kastoo la isku yaro u kabkabay in dhulka lagaga dhufto si uu qofkani u cararo ama qofkii wanaagga waday si meesha looga faayar garayn karo dibadda loogu tuuri karo walidalik ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yani hadda siirada nebiga akridaan wax aada u badan baa arkaysaan waayo dee rasuul qura muu ahaynoo waxyiga alle sheegayo qura wuxuu ahaa qof bini aadam maamulayo nooc waliba la kulmayaan mid raacsiisan iyo mid munaafiqa iyo mid u gargaaraya mid la dagaalamaya iyo mid khiyaamaynaya mid waliba khiyaamooyinka nebiga lagu sameeyna xad bay gaadhaysay intay yidhaahdaan culamo noo soo dir odayaalba uyama waxay dhahaan culamo nasi reerkayga baa islaamay buu yidhi oo diinta uu ku fiican yahna wakaas waxaan rabnaa rag diintana baree saxaabadiisiibu wuxuu ka xulay 70 nin
oo diin akhriya yaqaana uu yidhi qoladaha soo islaamiyaan oo diinta u sheegaan markay reerihii la dhex tageen bay 70-kiiba madaxa ka jareen 70 ku daray bay madaxa laga gooyay yacni noocaasaa loola dhaqmayay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ka garan kartaa ghaswatu xunayn markay dhacday ayaa xoolo badan la helay xoolihii buu nebigu wuxuu siiyey dadkii hadda soo islaamay saxaabadii madiine kala timay ansaarta iyo muhaajiriinta iyo waxaan lahayd ee xoogganayd ee dagaalantee dee intaasoo sannadood islaamka u dagaalay dadkii halgamay xoolo muu siin xoolihii wuxuu nebigu siiyey kuwii hadda islaamay ee maka markii la furtay kuwii hadda islaamka soo galay odayadoodii reero walba dee nin baa ka qabqableeya qoladani shalun bay soo islaamtay oo iimaanku weli xoog uma degina iyaga xoolaha iyo manaasibta iyo waxan baa wax la ah dabeetana markii xunayn la qabsaday alaqrac ibnu xaabis oo nin reer baadiye ahaa buu 100 halaad u dhiibay cuyayna ibnu xusn oo qadafaan hogaaminayay 100 kala siiyey abu sufyaan ibnu xarb oo meesha marayuu 100 siiyey abu sufyaan markuu arkay in 100 layso siinayo miduu dhalay u yeedhay mucaawiyu kana markaasuu nebigu 100 kala siiyey dib buu noqdo yaziid buu yeedhay mid kale u dhalay markaasuu nebigu 100 kala siiyey 300 halaad buu siiyey dadkiibuu xoolo ka dhergiyey nebigu laakiin xoolaha dadka la siinaya inta badan waxay ahaayeen dadkii imika diinta soo galay qoladii seeftoodu dhiigu ka da'aysay intaasoo dhan soo jihaatabaysay 10 sano soo jihaatantayna waxba lama siinin munaafiqiintii baa intay hadleen bay idhahdeen icdil fa innaka lam tacdil cadaalad samay bay idhahdeen wallahi inaad cadaalad samaynayna taasi qisma maaha bay idhahdeen qayb maaha bay idhahdeen wallahan ku dhaaranay alla dartii looga jeeday warkii bay dadkii dhex geliyeen yani ninka munaafiqa ama ninka raba inuu wax burburiya waa inuu helaa dhacdo jirta laakiin dhacdada tan waa inuu u sharxaa siduu doonayay waxay idhahdaan taariikhda marka laga warramayo historygu waa la isku khilaafaa dunida waayo dhacdada iyo tafsiirkeedu waa kala nooc waxay u dhacday iyo sababta nin waliba dee maskaxdiisa iyo mabaadi caqaa'idda controlsho bay idhahdaan qofku wuxuu rumaysay inta badan justificationiska ka dhiga dhacdo yaroo dhacdaa 50 weji loo sharxa dhacdo waa inay helaan siday doonayaan dabeetana ay u sharxaan mujtamacii wuu gilgilmayba xataa ansaartii badh ka midi uu madmadow galo la yidhaha war heedhaha inana intaasoo dhan baynu soo dagaalamayna seefaheenniina kuwuu dhiigoodu ka da-ayay imikadan soo galay ilan dee makaa lagu soo qabsado markaa xunayn baa loo sii socdaa hadday diinta soo galeen kuwii imika soo galayna wixii xoolaba lasoo helaa la siiyey arrinku sayt arrinkaasi ma jirtaa buu nebigu idhaha baa la yidhi bal ansaar oo dhan igu yeedha buu yidhi ansaar buu gaar ula baxay waayo dadkii waxay yaro shakiyeen waar nebigu tolo mutolkii buu u badiyey markii horena dee ansaarta buu dagaalgeliyo waa kanoo naf iyo maalba uray markii tolkii islaamayna armutolkii un dee xoolaha u dhiidhiibo arrintu saytay dabeetana wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ansaar oo qura iigu yeedha ansaar buu meel wada fadhiisiiyey wuxuu yidhi waxaan ansaar ahayni miyay idinku jiraan ma raba in cid kale joogto inan abti loo yahay baa nala jooga bay idhahdeen ibnu binti alqawmi minhum buu ku yidhi inanka abtiga loo yahay reerkun buu ka mid yahay cid kale miyay ku jirtaa buu ku yidhi may bay idhahdeene waa ansaar oo keliya ansaar buu la hadlay markaa nebigu ee uu leeyahay ansaaray idinkoo lunsan oo isdila oo waxaan sameeya oo kan cuna oo diin laawayaal oo caynkan aan idinin dabeetana ilaahay baa gacantayda idinku soo hanuuniyo dad baa noqoteen oo islaam baa noqoteen oo saam baa noqoteen wuu wacdiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam aakhiruu xasuusiyey alle subxaana watacaala markaasay ilmeeyeen ooyeen iyagoo le allahu warasuuluhu aaman ilaah iyo rasuulkiisu waxay sheegeen yani ka gallad badan wax ka badan intaas ba ayaana loo qabtay yani waxyaaba badanoo nebigu u taray oo dee naaru ka badbaadiyey buu u tilmaamay allahu warasuuluhu aamanu bay yidhahdaan markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi markii dambe haddaad doonaysaan waa ii jawaabi kari lahaydeen buu yidhi maxaa idina u odhan weydeen adigoo lagu soo eryaday oo talkaa ku soo firdhiyey oo meelaad gashala oo caynkana baad noo timi oo dabeetana waanu ku dejinay oo waxbaanu kaa dhicinay oo diintii baanu kula faafinay oo waanu ku intaasoo dhan haddaad tidhahdaan idinkuna xaq baa u lahaydeen buu yidhi laakiin miyaydan raalli ka ahayn buu yidhi dadkuna inay dhareerka adduunye qaataan ama waxoogaaga yare adduunya inay dadkuna qaataan idinkuna ilaahay rasuulkiisa iyo diinta iyo waxyigii inaad la noqotaan oo ay madiini noqoto meeshii waxyigu kusoo degaya nebigu joogay dee islaamnimada iyo barakadu ay kusoo degaysay inaad idinkuna ilaahay rasuulkiisa la noqotaan qoladani waa walmu'allafatu quluubuhumka qur-aanku tilmaamayay kuwii lasoo dhaweynayay weeyaan in qoladanina ay intaa qaataan miyaydan raalli ku ahayn buu ku yidhi nebigu wuxuu lahaa haddii dadkao dhami waddo mara buu yidhi oo ansaarina ay waddo marto waddada ansaareed baan marayaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam
dabeetana wuu u duceeyey isagoo leh allahuma arxam ilansaar wa abnaa'i ilansaar wa abnaa'i abna saddex fac buu ugu sii duceeyey ilaahu ansaar u naxariiso ansaari kuway dhasho usii naxariiso kuwa kale ay dhalaan usii naxariiso kuwa kale ay dhalaan usii naxariisay buu nabigu yidhi yani waxaan uga jeedaa dhacdo jirtay laakiin tafsiirkan ka gedisan lahayd ayay nimankii munaafiqiinta intay qaadeen bay waxay isku dayeen inay ku burburiyaan mujtamac ama organisation dhan oo jiray oo soconayay waxaan masaa'ilkan oo dhan idinku tilmaamaya inuu ninka daaciga ahi ama ninka ummadda mas-uulka u ah ama ninka raba inuu ummad hogaamiyaa inaanu u jajabnaanin ama se u jiljilicsananin maxaa la yidhi iisu ahaado taargetku lahaa ma gaadhay hadduu wax saxa ahaa wixii saxa ahaa ma gaadhay waxaa intaa raacda nabigu calayh isalaatu wasalaam weligii baa la yidhi naftiisa wax la yeelay umuu cadhoonin wax kastoo lagu sameeyey wuu dulqaatay yani ma in diinta iyo mabaadi'dan uu wado in wax laga sameeyo ka cadhoon jiray laakin man taqama linafsihi abada buu imaam albukhaari leeyahy weligii naftiisa uma aargoosan ma odhan waxan baa laygu sameeyey kan baa laygu sameeyey innaga waxa laga yaaba ninkeena mas-uulka ama ninkeena waxyaro qabta hadday de kuwa munaafiqiinta ku kacaan ama caayaan ama maagaan ama isagoo dudaya inuu albaab ka boodo kabiisa intuu ilado aanu dibba idiisoo egin waxaa laga yaaba intuu hibernation galay inaydan dibba u arag ninkii shalayta waxtarka ahaa ee wax qabanaya idin hor socday kana in dibba loo waayo kuwa eriyeyna inay yihiin khayr laawayaal aan waxba taraynin isaga dabadii waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay inaynu stabiskan oo dhan marro oo ah qofkii muslimka ee waaciga inaynu abuurno dadka waxgaradka ah inaynu ururino markaasi oo dad mobilized ka dhigno dadka mobilizedka inaynu qiyaada u yeelno intay doontaba kala leekaadeen qiyaadada tani inay ahaato qiyaado kuu sunnadu tilmaamaya waxooduna inay ku dhisnaadaan wada tashi wax shuura la yidhahdo islaamku jidaynaya oo ilaahay leeyahy washaawirhum fi lamr u fiirso aayaddaasoo quran sharxaynay goormaa ilaahay nebiga amray inuu saxaabada la tashado waxaa lala tashaday mar dhacday dhacdadani maxay ahayd war baa yimi odhanaya gaalaa soo socota oo madiinaa lagu soo weeraraya dadkii masaajidka joogay buu nebigu la shiray markuu la shiray calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey maxaynu yeellaa ma halkan baynu ka difaac gallaa mise waynu baxnaayo dee waynu ka hortagnaa ciidanka waynu iska celinaa ra'yiga nebigu wuxuu u janjeeday in la qaato in halkan madiine gudaheeda in laga difaac galo laakiin dadkiiba waxay u bateen ama aaraadoodu ay u muuqatay inay rabaan in la baxo oo dabadda laga dagaal galo weliba khaasatan dhallinyaradii badnayd ee aan ka qayb gelin dagaalkii beder waayo dagaalka beder mu ahayn dagaal marka hore ay dagaalnimo ugu talagaleene waxa la isla awr meel maraysa lasoo qabanaya dabeetana dagaalkaa dhacay marka raggii dagaalkii hore ka hadhay oo dham waxay is idhaahdeen maanta wacdara dhigteene horeha loo baxo waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dirqiyey ama lagula teliyey in la baxo markii la baxayna dhibaatadii waa tii dhacdeen lasoo jabay dhibaatadii markay dhacdeen lasoo jabay kadib baa qur-aankani soo degay qur-aankani muxuu tilmaamayaa marka mashkiladdu si kale ha idinku dhaco taladaba asiibi waaye wada tashigu inaanu marnaba isagu ahayn ka jabniinka keenay dabeetana ilahay wuxuu leeyay washaawirhum fi lamr ilahay wuxuu leeyay wax kastaba ha ahaadaan wixii idin soo kala maray si kastaba ha noqotee washaawirhum fi lamri baa leeyahay subxaana wa tacaala la tasho oo marnaba ha ka tegin washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakiliin waxaa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamaya suurad dhan oo qur-aanka ka mid ah ayaa la yidhahaa suuratu shura suuraddii wada tashiga 9 sifaa mu'miniinta ilaahay ku sifaynaya sifaadka ilaahay mu'miniinta ku sifaynaya mid ka mid ah ayaa ah shuura weliba waa sifo la dhex dhigay laba arkaanulislaam ka mida baynu odhan karnaa ilahay wuxuu leeyahy waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamuu الصalaaة waamruhum shuuraa baynahum wamima razaqnahum yunfiquun mu'miniintu baa la yidhi waa kuwa ilaahay adeeca waxaa kaloo la yidhi waa kuwa salaada ooga waxaa kaloo la yidhi waa kuwa arrinkoodu wada tashigu ku salaysan yahi waxaa kaloo la yidhi waa kuwa wixii la siiyey wax ka bixiya ama zaka bixiya ama sadaqaysta zakadii iyo salaaddii waxaa la dhex dhigay maxay inay noloshooda wada shuuro ku salaysnaato waxaan leenahay waa maclam ama waa tabeello ka mida tabeelayaasha siyaasadda islaamigii inuu ku salaysnaado wada tashi ee aanu ku salaysnaanin kelitashi iyo wax ninu iska wata iyo wixii ilaah iyo rasuulkiisu yidhaahdeen way go-ayiin laakiin noloshu waa nolol ballaadhan baa jirto oo u baahan in laga wada tashado waxaan filayaa waktigu ugu dhammaado waan soo koobayaa wixii aan sheegaya maanta oo dhan
waxaan kusoo koobaya waxaan leenahay dhibaata ina haysata dhibaatadeennuna waa dhibaataan maanta bilaabmin ee muddo dheer soo taxnay laakiin waxaynu u baahannahay dhibaatadaas aynu uga bixi lahayn inaynu falowgeed qabanno systemkaynu uga bixi karaynaa aniga ii muuqdaa wuxuu yahay inaynu isku dayno waxaynu rumaysanay inaynu dadka u caddayno inaynu isku dayno inaynu soo saarno qofkii muslimka ahaa ee wanaaggana taageeri lahaa xumaana ka weecan lahaa dadka muslimiinta ee wanaagga raba inaynu isku dayno inaynu ururino baha ka dhigno organized dada inaynu ka dhigno organizationkooda inaynu isku dayno inuu ku samaysnaado inay wada tashadaan sida loo kala mudan yahayna inay wax u kala haystaan wallahu aclam ama inoo sheego walaalkeen sheekh maxamed